Lo yellow, Foxen, Wabanake, Laya'i Wagazo Bilani, Bishari, Wabilgay. الحمد لله على حلمه بعد علمه وعلى عفوه بعد قدرته وصلى الله على سيدنا محمد النبي الزاهد رسول ملك الصمد واحد صلى الله عليه وسلم. dhalinyaro waxaan ka soo sheekaysanay labadii kaliib ugu dambeysay Soomaalida magaca ma Soomaal ba mise waa Soomaal aragti badan oo kala duwan ayaa isdhex socday. Soomaal oo anigii sharaxay Soomaalna beri baa maartay la oran jiray dad baa dhihi jiray niman adigu waxa weeye qoraalada nin walba waxba uu sameeyay laakiin tii loogu badnaa waxay ahayd Soomaal. Soona waa anigii sheegnay in loo yaqaano xoolaha gobolada qaarkoodna looga yaqaano hilibka looga yaqaano waa ereyga Soomaalida afkan Soomaaliga waa af qadiim ah oo afafka dunida ugu qadiinsan ayuu ka mid yahay. yani aragtiyo kala duwan baa jirta xataa ka xilli kale ka sheekaysan doonaa waxaa jirta xataa maartay in carabta la sheego magaca carbeed ereyga laftigiisa macnihiisu inuu yahay ruux wanaagsan oo suuban. waa ruux wanaagsan oo suuban baa ereygaas markii la macneeyay lagu macneeyay carab. haddaba afafkii hore ee carabtaasi ku hadli jirtay dee af Soomaaligan unbuu ahaa. waxaa jirta af Soomaaliga wuxuu soo gelayaa kooxda la yiraahdo afafka ku hadasha afafka kushitiga. kushitiga waa anaga ka soo sheekaynay habla group qolada loo yaqaano inay yihiin waa anaga ka soo sheekaynay. habla groupkan marka 44 qolo ayaa ku hadasha afafkan kushitiga loo yaqaano oo maxaa la yiraahdaa reer xaam ah. waa baajo saax maxaa la yiraahdaa bajeelo afar oromo waa badan yihiin 44 weeyaan oo reer oo macnaa qolo oo ku hadasha afafkaas ku hadasha. af Soomaaliga inuu qadiin yahay ee carabiga xataa uu ku dhex jira carabigii hore oo ka mid ahaa ereyga carabna ma aha carabtan cadcad ma aha macnaheedu. ereyga carab waa ninkii suubanaa ruuxii suubanaa ee wanaagsanaa baa carab la yiraahdaa. horta xiise kale aan ka sheekayn doonaa waa mowduuc dheer oo faahfaahintiisana wata. haddaba marka aan tusaale gaaban oo aan soo qaato nabiyullaahi ibraahim calayhi salaam kolkii uu midida saaray nebi ismaaciil calayhi salaam ismaaciil calayhi salaam uu lahaa yaa abati ifcal maa tu'maru satajidunii in sha allah min asaabiriin mididii oo dul saaray bal qur-aanka fiiri ereyga waxaa la isticmaalay tafsiir aimada tafsiirka ibnu kathiir jalaaleyn iyo sa'wi yani aimada ibnu kathiirka ah maxaa la yidhaha tafsiirka samaysa oo kuwooda maaragtay ugu mashhuursan ee la garanaya mindi ayay u isticmaalay ereyga mindi ayaa la isticmaalay. balshuf waxyaalo badan ayaa jira ereyo badan oo fara badan oo af Soomaali ah oo haddana laga dhex helayo weliba kolka waxay ku dambeeyaan bilqur'aan alkariim ayay ku dambeeyaan ereyada qaarkooda sida noolkii oo kale ereyo badan baa jirta. carabiga markaan carabta ka sheekaysanayna ayaan geli doonaa mowduucaas insha allah. haddaba Soomaali dadkan Soomaalida ee innaga ah waxaan lahayn hab dhaqan dhismeed oo sidii qaabkii dowladda oo kale ah qaab dowladeed oo kale u samaysan. dhaqan dhismeedkani muxuu qeexayaa
وقيحيا قلقلو وقبيل قلقلو بقيحيا محو شيغايا وحو ليهاي مثلا قبيل waxaa la oran karaa buu leeyahay dad dhul leh oo deegaan lagu garanayo deegaankaas reer hebel baa dega la leeyahay laba dad xoolo leh inay yihiin oo xoolo fara badan hantidii Soomaalida ee isku faanto waa hantidaas xoolaha iyo beeraha haddaba dadkan waa inay lahaadaan dhul waa inay lahaadaan xoolo fara badan oo beri ka maalin waxay doonaan ku iibsan karaan ama mag ahaan u bixin karaan ama ayagana magna qaadan karaan xoolahoodana waa inuu lahaadaa sumad u gaar ah qoladaasaa lagu garanaa sumadan markii la arko xuduud kale lagu arko oo qolo kale ah reer hebel waayo qoladan si loo yiraahdo ayay u samaysteen nidaamkaas isla markaana waxay samaystaan duub qabiilka marka sidaas ku samaysan yahay marka oo ku dhisan yahay haddaba Soomaalida sideedaba waxay u kala qaybsantaa qolo kasta oo meel kasta joogta oo dhulkan Soomaalida ay leedahay joogta waxay u qaybsamaan 3 qaybood ay u qaybsamaan maxaa la yiraahdaa 3 qaybood 3 qaybood waxaa la yiraahdaa wadaad waranle iyo waable wadaad waan garanaynaa waa culimo aqoonyahankii waaye waa culimadii culmaa diinkii weeye aqoonyahankii weeye waranle marka haddaba marka la leeyahay dagaalyahan ma ahan ee waa xoolo dhaqato laakiin iyaga ayaa u badan oo dagaalo la kulma ama xoolo la soo dhacay ay soo dhiciyaan sidii dagaal ku galaan ama kuwooda maaragtay la dhacaya ee difaac galayaan ama iyagaaba laga yaaba inay xoolo kala doontaan ma ogtahay waa wax kasta waa macquule waranle waable ayaa jira marka kan saddexaad waable waa xirfadlihii ninkii maaragtay gambarada sameynayay ulihii maaragtay udbihii iyo dhegihii aqalka hagaajinayay marka hore ileen waa geedo la soo guray un haddana waa maaragtay midiyihii wax lagu goyn lahaa masaartii godintii wax walba farsameynayay weeyaan marka wuxuu noqonayaa waable haddaba afkan af Soomaaliga waa afka dunida ugu qadiinsan maaha ka mid maaha markan afafkii hore ee jiray maaragtay yani afkii Soomaaliga un weeyaan laakiin wuu rogmay hadda ka hor clip yar oo aan soo qaadan ayaa jirtay oo aan kaga hadalnay afkan Soomaaliga aan kaga hadalnay inuu taqayir fara badan ku soo dhacay oo bedelmay laakiin beriyo dhow adigu qarniyo dhow qaabkii looga hadli jirayna tusaalaan ka bixiyey tusaalahaas oo ahaa مثلا ninkii la bariidin jiray ee aan sheegay hebel xalay maxaad ku baraday ee dhihi jiray xalay nabad baan ku bariyo xalay baan duubiyo ku roobe yaan waraaba qadis kula farayaystay kolkaaba jeex qaar horaadka lugtool kula jalan jooshay waa Soomaali dhalinyaradan haatan joogtay xataa dad waaweyn badan oo dad fara badan oo waaweyn oo jooga aanan keeni karin waxaweyaan xalay baa duubiyo ku roobe duubiyo waa nigi sharxay waa digirta kolka la qalajiyo ee masnaha dhoodi la daqiijiyo waa la duubiyo waa la saloolay waxa laga dhigay sidii saloolkii loo dubay ama loo shiilay ciid baa lagu shiilaa inta badan oo qaleel baa lagu shiilaa kolka kadib waa la daqiijiyaa iyadoo la daqiijiyay baa masna waxa loo sameeyaa qaabka shuurada ama soorta oo kale loo sameeyaa marka dubayo ayay qaadeen magac la yiraahdo ay la baxaysaa haddaba dubayo kuroobe waa kurta wax lagu cuno kur iyo xeero waa garanaynaa kurta wax lagu cuno marka kurta kuroobe baan waraaba qandis kula fareeraysto waraaba qandis waa caanaha kolka ay ka soo tagaan macaankii aysan weli u gudbin dhanaankii aysan u gudbin dhanaankii hadda garoorkii maaha fadhigii maaha oo ciirtii maaha weli lama gaarin
soomaalida koonfurta waxay yidhahdaan manyac intaysan noqon soomaalida koonfur kaliyima soomaali fara badan baa tirahdaa manyac marka dhanaankiin ma gaarin marka suusaca weli ma gaarin marka waxaa la yidhaha waraaba qandis kula farayaraystay buu yidhi kolkaasaa jeex waa maqaarka yar inta badan u isticmaalaa in lagu tukado ama kolkolna in lagu fariisto waa maqaar weyn oo jiifa ma noqonayo waa mid yar ee dhuudhuuban jeex baa la yidhaha marka aan qaar horaadka qaarka hore yaa intuu saartay qaarka hore ayuu lugtool waa barkinta geedka ka samaysan lugtool dhigtay kula jalanjooshay luguhiiu saartay jalanjool baa la yidhaha fadhiga kolkaa fadhisid ee lugahaada isdul saaran yihiin waxaa la yidhaahdaa jalanjool baa la yidhaahdaa cashirkeena halkaasu ku egyahay qaybta kale ayaan ku dhammaystiri doonnaa insha allah wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatu dayaci wagaasoo bidhaane bishar